jacaylku beer un ku tusaaleeya jacaylku in la waardeeyo u baahan yahay jacaylka in la waraabiyo u baahan yahay jacaylku cadow badan buu leeyahay in laga oodo u baahan yahay jacaylku fiiri meeqa biyo adduunka laga isticmaalaa biyaha tuubada biyaha cirka biyaha badda biyaha ceelasha weliga ma maqashay biyaha jacaylka hada xaqiiqo waa sax biyo waxa jir la yiraahdo maa'ul hub war ma maqashay idinka la yiraahdo waa inuu bariidin maa'ul hub baa jira biyaha jacaylka maxaa kamida afiqa kalsoonida kamida in la abuuro waxa rajaynayaa lamaana kasto imaqli doona in ay qodobkaas soo nooleeyaan oo ay kalsoonidii dib u soo celiyaan oo gabadhu indhaheedu uu ninka ku weynaado oo gabadhu wiilku ama ninku indhihiisu ay gabadha ku weynaadaan oo ninku u arko hal tusaale siinaya maalan odaygii baa soo galay gurigu soo galay waaba duhurkii weeye qadadii buu ka yimid wuxuu ka yimid shaqadii uu weysaystayba wuxuu tukaday 2 ragcadood islaantu kuma ayna aqoon jirin ninku inuu saacada 2 ragcadood tukado way weydiisay oo waxay tiri saacadan 2 inayso maxay yihiin markaasuu wuxuu yiri markaan ku eegay oo ku fiiriyay quruxdaada iyo sharaftaada iyo caruurtaad ii dhashay quruxdooda iyo gaarinimadaada ayaa nicmadaas ilaahay shukri aan ku shukrinaya daraadeed baa 2 ragcadood tukaday waxaad ii sheegtaan gabadha aad intaa ku dhahdo maxay dareemaysaa yaa ii sheegi kara ya gabadhi ka dhig hadana arintana gabadhi ka dhig ninkiiba ku yiri maxaad u tukanaysaa ilaahayga igu ka arzuqay ya inta nin adduunka badan alla ilaahay jecela inuu ilaahay jecelay waxaan ku gartay inta nin booraba joogta ya adiga uu ilaahay ka xul alla ilaahay jecela ma ila tahay ninka muxuu sameeynaya soo sidii barafka uma dhalaalayo inta reeraheena naga xigta waa inta macnaheedu waa maxay fiqa iyo kalsooni tusaale kala qabsada odaygii baan hadana tusaale ku soo qabanaya shaqadu tagay maanta markuu meelaha joogo oo kaasi maqan yahay 2 saac oo kaasi maqan yahay yo halo soo yiri oo soo wacay ha habibi salaam alaykum wa alaykum salaam haye maxaad maanta jira wallahi waxaan doonayaa maanta inaan shaqada ka soo tago oo maxaa dhacay mid xanuunsan tahay ma yaada ku xiisay erayo waxa hubaala intaas iga tijaabiya waxa hubaala inaad guriga aad ku soo noqon oo ugu soo noqon qofkaad ka tagtay qof aan ahayn gurigaad ka tagtay guri aan ahayn cuntada shalay cunto aan ahayn xabada way ka diyaar galoobayaan xabada kale noo tahay maya adu furaad siiyay sheekh wuxuu yiri inta hadan hal maalin ku dhaw maalinta dambe maya adu طريقه kale isticmaalaysa laakiin hal furu baan ku siinaya taa kali ama wal aaqilu yafamu bil ish wa tusaalihi wi sida daraadeed tusaalooyinku wax badan bay faa'iideeyaan odaygii baa soo galay oo aad u daalan oo maantuna soo shaqeynayay Soomaa gabadhii u yimid oo aad u daalan oo maantuna caruurtii daba ordaysay oo qada u kari oo u qabe oo quraanka u dir oo ka soo qaad oo dharkooda diyaari oo hadana odaygii si cuntadiisa diyaari oo dharkiisa diyaari ya laba daalan baa isu yimid warsaas ma waxa laga yaabaa gabadha inay leedahay wallahi gabadh dariskeeda u wareegaysa mugti abaayay aniga wallahi ninku ku rafaasanaho waxba iima qabto shaqadaas ka imaada wuu seexdaa saas ma maxaa keenaya laba daalka waa in la iskaga garaaba ka war haduu odayga markuu soo galo ay ku dhahdo gabadhii soo dhawow annaga noo soo shaqeynaysi maanta dhan qorraxdaad aragtay adiga kugu dhacday
ilaahay ha noo kaa daayo kabaha maartay kabaha musqusha lagu galo ay xagga u sii jeedayso musqusha soo sii gashado shukumaanka u sii dhigto intuu soo iisoo qabayso cunto kuleyl iyo qabow u dhaxaysa oo cusbadu ku yarta inana waxa moogta waxad walwalaaqday ma aha sama cunto kuleyl iyo qabow u dhaxaysa aad markaa u soo dhigto kadibna aad dhahdo war baan ku hayaa aye maanta ana ku cazuumay waan ku cazuumay waliga adu ma cazuumtay ninkaaga waliga ma cazuumtay sama saasa la rabaa wallahi gabdhaha fariidin way wiilasha weydiinaya idinku waliga gabdhiina ma cazuumteen ma tiri maanta ana ii cazuuman tahay sama hada iskiga dadaala saas ma saas weeye marka anaad maanta ii cazuuman tahay sida daraadeed gabar baa ninkeedii bay qiso yar baa idin sheegaya halka ku saabsan gabar baa isoo wacday waxay igu tiri sheekhu ninkii baan kala taaganahay maxaad igula talin lahayd anna waan jeclahay igu tiri laakiin ninkii xoogaa waxaad moodaa maalmahan siduu iga sii jejeedaa waxaan ku idhi waxaad yeeshaa qolka jiifka waxaad yeelaysaa waxaad ka dhigtaa horta aroos run ah ubax hadduu noqdo gogosha oo alaabta lagu dadaadiyo waa taqaanaa sooma gogosha alaabta lagu dadaadiyo barfuuno hor leh adigu guriga horta waxaad ka dhigtaa guri aroos oo nalkan cad ka bedel baan idhi nal cad baan kugu rakiban horta nalka cad ka bedel nal cagaaran horta waa inaad ku xidhaa ninka markii la daaro uu guriga isbedelayo war waa la faham sooma kadibna cunto cajiiba u samee adiguna labiso qolka jiifkan ayuusan gelin markuu imaaday qolka yar maanta dharka iskaga bedelay qolka jiifka u xayisiin waxda ma qolka markuu maxaa maanta qolka dhacay ku dhacay qolkii markuu galay wuxuu arkay qolkii oo la yaab leh carafta iyo quruxda iyo wixii la kala bedelay ninkii nimanku waa gabdho nimanku waa masaakiin runtaan idin sheegaya ninkaad intaa ku samaysaan waa sixirteen waxaa as-sixru al-halal ma maqasheen nimanku waa markiiba ninkii gabadhi hab allah ma waxan maanad ii samays oo waxan maana iskale oo gurigan quruxda badan maana iskale oy gaadhoday marka waxa la rabaa noloshu waa sir waxyaabaha fiqada iyo kalsoonidu ay ku imaanayso waa muhiim qodobkaasi muxuu ahaa hadda u dambeeyay muxuu ahaa kalsooni Soomaaliya wa inaan guryaheena wa inaan kalsooni ka shaqeyna bi idin tabaaraka wa ta'ala waxaan rabaa inaan idin sheego kalsoonida aanu soo sheegnay waxay leedahay fimaar iyo midho laga gurto yaa guranaya caruurteena kalsoonida lamaanaha fimaar bay leedahay midhay leedahay natiijay leedahay natiijada waxay ka muuqanaysaa wajiyada caruurteena farxadda caruurteena kalsoonida caruurteena ay ka muuqanaysaa si fiican u dhageysta tan cagsigeeda way imaan doontaayo haddii mar guriga buuq iyo qayle iyo sawaxan ka jiro caruurtu nooc kale marka u ekaanayaan taas marka waa qodob dhaxtaar insha Allah tabaaraka wa taala hadii la yiraahdo qodob kale fiiriya تشابه الأفكار والقيم والعادات إلى حد ما بمعنى ما حلقة وضع لبدا نقف لمانها مدام لبا مسكح أو كلا الدول إليهم لبا قيسنا أي كسو كلا كورين لبا عادو يتنقلنا خاص أنا أي كلا ليهم انت أوذا ولا اسكسو دوي مؤكتي خير فربلا وحاكلا جية محاي اسم فهمينا نك ما فهمتوا نك اسم فهمينا قبلنا اسم فهمينا ولا فهمتوا مركز هيري قفك وقف بني آدم سوماها وقف بني آدم أفكار بوليه أدونا أفكار بالله قيم خاصة بالله هاي لابو عادات يقاب نقنات كسوكر هل غيابا ننكو إنو كسوكري قري بدخ إيو برواقة إيو gabadha waxa laga yaabaa inay faqri ku soo kortay saasaba cagsi ka dhigo gabadhi baa waxay ku soo kortay maxay barwaaqo
iyo xoolo iyo aabaheed iyo waalidkeed waxa weeyaan ninkana wuxuu ku soo koray faqri buu ku soo koray labadiiba calaf la isku daray labo